wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare warbaahinta kula hadlaysay xarunta wasaaraddaasi ee magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyntii u mahad celisay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaay iyo labada gole baarlamaan ee guurtidii wakiilada iyo cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta xeerkan. Haddaan nahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee runtii xilkasnimada ah ee uu nogala shaqeeyo runtii wasaaradda iyadoo uu ka shaqeeyo madaxweynuhu wasaaradaha oo dhan haddana anagu taayada runtii aad baan ugu mahad celinaynaa waayo intii uu imika shaqada hayay uu joogay waxaa noo soo baxay 3 dekreeto waxaa noo soo baxay xeerka waxaan u mahad celinaynaa kale labada gole baarlamaan. wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo faa'iidada xeerkan ka hadlaysay ayaa sheegtay inuu xeerkan saameyn ku yeelan doono bulshada iyo deegaanka isla markaana wasaaradahan ay ku dadaali doonaan sidii uu u shaqeyn lahaa. waxaan dadka reer Soomaaliland u sheegaynaa mar haddii xeerkii soo baxay oo xeerkii hore jiray 498 uu kan bedelay waxay noqon doontaa xeer lagu wada shaqeeyo ay nagula shaqeeyaan ilaa heer gobol ay ilaa heer degmo ilaa heer tuula aynu ku wada shaqeyno waxa weyn xeer reer miyigu runtii nagula shaqeyn doonaan xoolo dhaqatadu nagula shaqeyn doonaan ama reer guraagba nagula shaqeyn doonaan xeerkan beeralaydu nagula shaqeyn doonaan cid allaaliya cidii ay khusayso ee kalaba. geeska kalena agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Mudane Maxamed Cilmi Xuseen oo weeliyo agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaraddaasi Cabdikariin Aadan Cumar oo warbaahinta dawladda kula hadlayay xarunta wasaaraddaasi ayaa ka warramay hawlgallo ay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ka fulisay deegaanka ka tirsan degmada Daar es Salaam ee gobolka Maroodijeeh. hawlgalladaasi oo lagu soo qabqabtay dad ku hawlana xalufinta deegaanka waxaana mas'uuliyiintani ay baaq u direen bulshada Soomaaliland. musiibo qaran baa ka muuqata ama afa qaran baa ka muuqata geed qoyan oo 50 sano ilaa 100 sano jiray oo geed kale lagu dul cunayo geedkan waa qoyaan saaka idinka wada muuqata dhuxushana laga diyaariyay sharciga baan u haynaa maanta kana waa kuwana waan marin doonaa waana xidhxidhan wixii waxa sameeyay waan soo qabanay asadkana de qaranka lahaa waa laga wareegayaa hawlgalkan wuxuu ka dhacay waqooyiga Hargeysa waa dhul la baabin maalinba waxa ka dhacaya waxaan leenahay wasaaradda kaliya kuma filaan karto sida uu sheegay agaasimaha balaaninkuba geed iyo gurguris ma tahay karto awoodeedu iska kooban tahay laakiin waxay loo baahan yahay bulshooyinka reer Soomaaliland in arrinkani ka go'naado oo iyaga xaggooda uu ka yimaado musiibadan qaran ee ku socota ee habeen iyo maalin aan kala go'alahayn ee istaba socota in gacan wada jir aynu iska kaashano